akoon iyo baasweerna shaqadeeda ma ahayn waxaan rabaa ummadda inaan la jahwareerin oo u cadeeyo durdur waxaan aniga u ahaa yaa jabsan kara horta wax sidee loo jabsan karaa bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waa abaal media group waxaan salaamayaa dhammaan muslimiinta meel kasta oo ay joogaan dhammaan daawadayaasha quruxda badan ee halkan naga daawanaya waxaan rabaa caawa inaan halkan oo u soo fadhiistay inaan halkan uga tacsiyeeyo walaalkay Xasan Toob iyo musiibadii durdur media ku dhacday durdur media runtii aniga waxaan ahaa nin halboolo u ahaa muddo ka shaqeynayay waxaan ka xumahay xaaladii iyo sidii wax u dhaceen Xasan Toob baa ku mahad celinaya waxaa tahay qof bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waa abaal media group waxaan salaamayaa dhammaan muslimiinta meel kasta oo ay joogaan dhammaan daawadayaasha quruxda badan ee halkan naga daawanaya waxaan rabaa caawa inaan halkan oo u soo fadhiistay inaan halkan uga tacsiyeeyo walaalkay Xasan Toob iyo musiibadii durdur media ku dhacday durdur media runtii aniga waxaan ahaa nin halboolo u ahaa muddo ka shaqeynayay waxaan ka xumahay xaaladii iyo sidii wax u dhaceen Xasan Toob baa ku mahad celinaya waxaa tahay qof micno badan wajiye badan leh aniga waa ku aqaan adigana waa taqaan ummadana way ku yaqaanaan fahanteed wax badan inaa sheega ma rabo wax badan inaa ka hadlo ma rabo xaaladeeda waa la ogyahay xaaladaada waa la ogyahay ummadda xaaladooda waa la ogyahay durdur media aniga wax dhibaato ma u geysan maxaan ahay horta anigii adiga maxaan ahayn Xasan adiga maxaa idheereed inaan ka hadlaa rabaa intaas Xasan Toob iyo aniga waxaan ahayn dad wada shaqeynaya muddo sanad ku dhow durdur media isbedel qurux badan ku soo kordhiyay alxamdulillaah adigana shaqadaas inaan awood u lahaada isiisa horta waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan ka hadlo aniga waxaan durdur u ahaa durdur cameraman ma u ahayn editor ma u ahayn publisher uma ahayn akoon iyo baasweerna shaqadeeda ma ahayn waxaan rabaa ummadda inaan la jahwareerin oo u cadeeyo durdur waxaan aniga u ahaa yaa jabsan kara horta wax sidee loo jabsan karaa intaas waa fahantaa umaleena haddaa daawanayso waa fahantay anigana waa ku fahansana cid walbo durdur ka tagta maxaa loogu dhigaa horta qofka waa shaqaysanaa dadaala gaaray horumar gaaraa ku dhah sax maxaa u diidantaa brada shalay waxay ahayd Ismaaciil iyo asaasiteen waxay asaasiteen Abees Cali Baafo hiiba asaasiteen dad badan kugu fiirsada adoo ku dhigan brada waa u dul qaadan waay aniga intaan ka badan inaa dad agteeda ku sii dhibaatayso ma fahanti aniga waxaan ahay qof daacad ku la shaqeynay isbedel qurux badan kugu soo wajahmay dani markaa kugu soo biiraan laakiin maanta abaalkayga sidaana ka dhigtay kama xumi dad badan abaalkooda lagu dheelaa mid isdhayn ani Xasan Toob ka qaldan yihiin isdhahay ma fahanti walaalkay Abees Baafo markii la jukeenay ina wax badan sheeg ma rabe wara dib u laabay dhigaysa nadaamini qorshe kala jiro ani waa fahmi waay laakiin maanta wax walba fahmi ma fahanti horta aniga durdur media Xasan Toob aniga waa israaci jirnay waxaan wadana gaadiid magaalada tagi jirnay muuqaala soo duubi jirnay liibaan shornal ahaan la socon jiray walaalkiis ah saga editor ahaa saga cameraman ahaa saga computerki hay aniga baawarka wadi jiray darwala ah sax waa israaci jirnay magaalada meel kasta taashinaato waa tagi jirnay sax yaa hari jiray liibaan shornal hari jiray asaga shaqeyn jiray ciwaanka liidadka anaga ka tashin jirnay sax oo u diri jirnay ciwaan qurux badan ciwaan diyaarsan shaqo qurux badan aan qaban jirnay laakiin dadka masaakiinta ah wax qurxoon ma lagu sameyn jiray ma fahanti ninkan waa abtidoon maanta wuxuu garabkayga u fadhiyay waa dareemi kartaa idinka anigana waa dareemi karaa bulshada idin la way dareemi kartaa
waxa ii gelisay magaalada inaan aniga jabsaday durdur media gmail-kayga waa lii sameeyay dad badan oo qubuura oo la xiriiray adiga aan la xiriirtay sheegtay in durdur aniga jabsaday waxa uu sheegay in gmail-kayga noocaas uu yahay waxa uu sheegay in xaalado badan ay jireen xasan toob waxa ku fikirtay nidaamiye intaas uu kula joogaa waxa duubi jirtay muuqaalo aan aniga aad uga xumahay maraba inaan inta ka sheego waxaan rabaa marka ugu horeyso haddana inaan ka hadlo xasan toob aniga waxa ii sheegtay durdur inaan ka mid ahaa ii hanjabtay horta hanjabaad ka hor xasan toob waxa ii sheegtay aniga inaan hadde maal igu bixinayso awoodo inaa iddisho ma fahanta gangiistara ku adeegsanaa dhahda maqlaysay waxaan joognay mid ka mid ah saldhigyada muqdisho immigrationka joogday waxaa sheegtay inaa aniga dilayso dhibaato ii geysan karto lacag badan YouTube ka shaqeysa tolaa leeyahay dadaa ka dhashay haddana dadaana daawanayo kuwaasoo noo dhexdhexaadin doona aniga adiga durdur waxaa ka tagay habeen waxaan duubnay muuqaal $1,000 oo tusma film soo gaarsiisay durdur media Allah ku barkeeyo baraad maanta ama umada waxa uu qabo ama waxa uu qaban adig ku taala laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo aniga wixii nafsiyan shakhsiyan dadaalkayga hawsheeda guusheeda meeshaas aniga ka tirsanaa mushaaraan ka qaadanaa intaas rabaa inaan ka hadlo wixii personalkaaga adig ku taala adii ilaahaga iyo dadka kula shaqeeya inii taala ma fahanti umada waxaan u cadeynayaa mar kale in la soo wacay aniga horta wicitaankayga ka hor 6 saac aan baxay oo habeenimo sababta waa dareemi kartaa abtidoon waa uu maqnaa oo asna wuu baxay sababta u tagayna asaan weydiin doonaa ani abtidoon meel baa iskugu tagnay habeenkii oo dhan mana la soo wicin waa ka maqnaa maalintii mana la soo wicin habeenkii waxaa la soo geliyay muuqaalo ay daawadeen dadka haddana daawanaya qaarkood intii daawatay way garanayaan nidaamiyo durdur media ka tagay durdur media abtidoon ka tagay nidaamiyi durdur oo saanisaan ahaa haba ahaatee labadaas habeen aan ka maqnaa habeenkaas iyo habeenkii kale maalintii aniga ka maqan oo shaqeysanahay dadkan maalintii kale waxaa la soo wacay durduraa la jabsaday iyadoo la dhahay maxaa isku keenay bixitaankayga jabsiga waqti badan u dhaxay balaad waa shaqeysanays aniga waa ka tagay ma fahanti waxaan rabaa umada inaan u cadeeyo aniga inaan ahaan editor ahaan cameraman aniga xasan toob aan kala hari jirin YouTube-ka iyo passwordkiisa iyo publisher iyo wixii la dhigayeen hoolahaas aan qabanin hoolahay kala ka badnaa mashquul ba intaas ay ugu filneed ma heli karin waqti kale ma heli karin waqti aan kula sheekaysto dadka faniskayga oo aniga aan hadda jeclaa inaan la sheekaysto la hadlo because aad u mashquul badnaa laakiin hadda waxa dareemayaa nafis fara badan farxad fara badan waan ka xumahay dhibaatada ku soo gaartay sidii ku soo gaartay walaalo waxa mar kale ku leeyahay nin walaalkay tahay wada shaqeyn iyo wanaag iyo dadaal naga dhaxaysay waa ka tagaa markaa ku dhahay waxaan aniga aaminsanahay inaan YouTube-kaaga iyo passwordkiisa iyo sidii wax u dhaceen adiga aad ka dambayso ma fahanti baraada tartiib umada masaakiinta ha ka waalin dadka yaa laga waalin passwordkaaga waa taqaanaa waxaaga waa taqaanaa dad walba la kaasho si kasta ku samee nidaamiyi wuxuu ka sheegay hadaa isdheeysi sumcadaada u dilaa baraada ma dilay sumcadaada ma fahanti mana laga yaabo inaan wax ka sheego because aasha soo wadaagay hal meel aan jiifnay hal meel aan wada joognay hal meel aan ku shaqeysanay dad hadaf iyo hami lahaa laakiin ceeb iyo sumcad xumo inaan ku soo hooyo marnaba laga yaabo si kasta la yeelo dad badan ay sheegeen dhaqaale fiican ay sheegeen saas sheegaa leeyahay xitaa been abuur sameeyaa leeyahay laakiin ma laga yaabo mana iga suurtoobayso marnaba ina adiga sumcadaada ku dheelo taada hadaa ku dheelateeda ku dheela
ceebo badan aan ku asturay ayaa xasuustaa intana ma ka sheegay ma fahanti ninkii ag fadhiyo waa Abdidoon intaan u guda gelin waxaan rabaa inaan mawduucyo badan halkan ka sheego waxaan u sii guda galayaa qodobka labaad waxaan raali gelinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhibaatada iyo beenta loo sheegay nidaamii muxuu aamusnaa iyo dadka leeyihiin waxaan jeclahay aniga hadii dhibaato la soo gaarsiiyo ama eedeyn la sameeyo inaan si degan u fikiro maskax degan ayaa wax badan qaban karta Xasan Toob way soo dacweysay si degdeg leh waxa imaada saldhiga waa bari waxana loo soo wareejiyay howlwadaag waxana loo sheegay inaan wax warbixin la bixin karin ilaa ay dhibaatadan laga xalinayo waxa la hadashay CK oo warbixinad badan u sheegtay ha ahadan kuwa luna ha ahadan kuwa beena ma fahanti dad badan oo wareysay anigana ma hadli kartid aleeyahay maanta halkan waxa u soo fadhiistay intaas waa ina hadli karo ummadana wax u sheegi karo وأنت وحما قبسن كرتيد وآمنسن يا حسن دو dad badan asaas oo dhihi jiray laakiin aanta in wax la qabsan karo adigana wax lagu la qaban jiray ogow ummadda Soomaaliyeed marka la waxa leeyahay waxaan bari ka noqonayaa jabsata in aan jabsaday durdur media in aan dhibaato u geystay mana laga yaabo inaan ku farxo arimahaas waa ka muraa dilaacanaya waa ka dhibaatoonaya xaaladaas iyo xaalado kale oo ka adag hadii soo wajahdana walaalkay waa hada u tagi waayo ama wax ka qaban waayo xitaa waxaan leeyahay waa ka xumahay dad badan ay soo wacay kuwaas oo ii sheegeen in Xasan Toob uu iraadinayay ibaadi goobay dili rabo waalidkay wacday nidaamii xal xabsi uu saxdaa dhahday saldhiga ku xiray nusaacta ma xirnaa laakiin balanti waa adkay ani qof balan leh ahli leh nidaam laha dadka waxa uu sheegtaa in durdur media iyo shaqaaleeda quraan la saaro ilaahay anagu anfaco quraankaasna la saaro ilaahay anagu anfaco alxamdulillah leenahay sharci wax walba diyaaraba ma shareysanayo waxyaabo badan ma shareysanayo laakiin alxamdulillah leeyahay qofka wuxuu aamino ayuu noqonayaa waxa aaminsanahay wanaag in aan ugu sameeynayso ma fahanti wanaagaas ayaa aaminsanahay ilaahay noo aqbalo anagana waxaan ku rajaynaynaa faataxa aan u mareynaa walaalkeen Xasan Toob ummadda Soomaaliyeed ee taawanayso cidii ka dambeysay in YouTube kaas la jabsaday waxaan u mareynaa faataxo inta ila joogto dadka iyo Abdidoon iyo aniga waxaan jeclaanahay inaan faataxaan mar wada aqrino si ilaahay ugu soo celiyo dhibaatadiisa u gaarin walaalkay dad oo ka biisha sax waay waa ka xumaa wallaah aniga xitaa mushaaraka qaadi jiray meeshaas laakiin waan ka tagay musiibadaasna kadib ku qabsatay hay ugu eedeen ilaaha kula baryayna ilaaha kula karab galo ilaaha ku soo celiyo baraada waxaan ku leeyahay guuleyso aniga nafsadeeda inta ku bixiso la sheegayo ilaaha ka weyn oo amaan iyo nabadgeliyo iyo intaan ba isoo leeyahay alxamdulillah alayha faataxada umarna marka bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan jeclahay walaalkay faataxadan inuu ilaahay ku aqbalo durdur media ilaahay dib uu ku soo celiyo haduu ku soo noqon weydana waxaan diyaar ku leenahay markaste inaan garabkaaga taagnaano adigana iyo dhamaan dadkana daawanayo waxaan jeclaan lahayd adiga i daawanayo inaan garabkiisa taagnaato Xasan Toob ani wanaag badan ani sharaf badan shaqo oo naga wada dhaxays laakiin maantay in shaqaysanaya ah guuleyso ana waa guuleysanaya brother halkan waa abaal media group channelkan aniga iyo Abdidoon ee ku midownay waxaan jeclaan lahayn in daawadayaasha quruxda badan subscribe iyo caawin inagu caawiyaan in subscribe inoo saaraan halkana inaga la socon doonaan waxyaabo badan ma halkan uga soo gudbin doona haduu eeba karaali noqdo
taageerayaasheeda walaalada muslimiinta leh waxa marka la sheegaya inaan dambi iyo dhibaato ku lahayn musiibada ku dhacday durdur media Allah ku soo celiyo. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.